السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووينلس كوتش مهد أحمد علي channelka aad daawanaysiina ood naga daawanaysiina waa nolosha dhabta insha Allah soo dhawaada dhammaantiin intiina cusub soo dhawaada channelka hadday tahay markii kuugu horeysay insha Allah waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo samayso haddaad hore noola joogtay aad iyo aad u mahadsan tahay adigana waxaan kaa codsanaynaa insha Allah inaad nagu caawiso muuqaaladeena aad comment ka soo bixiso insha Allah binilahi kariim like aad noo saarto asxaabtaadana aad la sii wadaagto insha Allah binilahi kariim maxaa yeelay anagu idinkaan idiin shaqaynaa channelkaanuna idinku idiin furan yahay insha Allah waxaana nagu talagalnay waxyaabaha maaragta qofka bini'aadanka noloshiisa maaragta siduu qofku noloshiisa u bedeli karo ama waxyaabaha markaas qofka noloshiisa saameynta ku yeelan kara inuu noloshiisa bedelo dhiirigelinta nutritionka nafaqada coachinka waxyaabahaas u furan yahay channelka waana u wada baahana dhammaanteen maanta waxaan rabnaa inaan barano insha Allah binilahi kariim aan la wadaago waxyaabo casharo aan online-ka aan ku bixi jirnay markii hore ayaa waxaan jeclaystay inaan qayb yaro ka mid ah maadaama xaalad adag lagu jiro runtii dadkeenna ama ummadeenna ama community-geennana mas-uuliyad naga saaran tahay insha Allah qof kasta intuu awoodo ama uu garanaya ama intuu sheegi karo ama sheergaray karo ayaa waxaan maanta jeclaystay inaan idinla wadaago maadaama cudurka Allah naga hayo viruska uu soo baahayo maaragta dadkiina ay u baahan yihiin more inay wax badan fahmaan xaaladdu inaysan sidii hore ahayn cuntada ay cunayaan inaysan ahayn cuntadii hore cuni jireen qaabkii hore loo noolaa inaan loo noolaanayn hadda dadaalku inuusan sidii hore ahayn waxyaabo badan marka inuu qofku iska bedelo ayaa very important ah oo noloshiisa ka bedelo waqtiga lagu jiro xaaladaha adag insha Allah xilliyadan oo kale haddaba waxaan baranaynaa maantay oo aan rabaa inaan idinla wadaago insha Allah binilahi kariim waxyaabaha maadaama aan nutrition coach ahay daily nutrition qofka uu u baahan yahay waxyaabo waxaa jira aad u baahan tahay maalin kasta inaad hesho uu jirkaagu helo haddaad heshana aad waxyaabo badan insha Allah aad ka badbaadi doonto maalin kasta nafaqada jirkaagu u baahan yahay waxaa ka mid ah tusaale ahaan inaad biyo kugu filan hesho biyo fiican inaad hesho jirkeenu ilaa 65% 70% waa biyo waxyaabaha inta badan markaas waxa weeye jirkaaga u baahan yahay maantii waa biyo sababtoo ah maaragta inaad musqusha gasho ay biyuhu kaa caawinayaan waxay biyuhu kaa caawinayaan waxyaabo badan maaragta wareegga dhiiggaaga oo kale waxyaabahaasoo dhan iyo caafimaadkaaga guud ahaanba ay biyuhu kaa caawinayaan tusaale ahaan qofku markuu madax xanuun dareemo oo kale inta badan waxaan cabnaa kaniin iyo waxyaabahaas laakiin markiiba waxaad ogaataa inaad biyo jirkaaga u baahan yahay marka biyaha qofku u baahan yahay waxay noqonayaan tusaale ahaan 25 kiilo jirkaaga wuxuu u baahan yahay maaragta 1 litro biyo tusaale ahaan haddaad tahay 50 kiilo waxaad u baahan tahay 2 litro biyo 100 kiilo haddaad gaarayso culayskaaga hadduu gaaray waxaad u baahan tahay ilaa iyo inaad 4 litro biyo cabto ama 8 galaasoo biyo koolada iyo faantada iyo casiirka iyo cabitaanadu ma noqdaan biyo ma noqdaan waxaad u baahan tahay kale fiber inaad hesho oo maaragta calooshaadu socoto si aad musqusha u tagto maalintii 3 ilaa 2 jeer waana very important taas laftirkeeda dad badanna waxa weeye taa kuma baraarugsana waxaa laga yaabaa inuu cunto cunayo quraacanayo qadaynayo cashaynayo haddana waxaa laga yaabaa qofkii inuusan maaragta xamaamka tegaynin taasoo aad ka qaadi karta waxyaabo badan oo dee caafimaadkaaga saameyn ku leh sida maaragta inaad naaxdo kale ood cayisho sida maaragta inaad qabsin iyo waxyaabaha maaragta lagaa qalo sida maaragta tusaale ahaan inaad baabasiir iyo waxyaabahaasoo kala yeelato waxyaabahaasoo dhan kugu imaan kara marka ma fiicna inay caloosha ku istaagto caloosha inaad socodsiido oo aad cunto maaragta cuntooyinka fiberka laga helo insha Allah binilahi kariim waxaa kaloo marka u baahan yahay jirkeenu wax loo yaqaano micronutrients oo ah 3 protein caafimaad ah iyo maaragta healthy carbohydrate iyo fat caafimaad ah ayaad u baahan tahay ayagoo marka caafimaad ahayn ama wanaagsanayna way jiraan waana nagu badan yihiin tusaale ahaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan carbohydrate-ka aan caafimaadka ahayn waxaa ka mid ah bariiska caad waxaa ka mid ah baastada caad waxaa ka mid ah daqiiqda waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa bad carbohydrate marka insha Allah waxaan baran doonaa healthy carbohydrate fat caafimaad ah waxaa kaloon u baahannahay waxa loo yaqaano weliba waqti xaadirkan macronutrients oo iyaduna ah vitamins and minerals
A to Z ayuu jirkaaga u baahan yahay mar kasta. haddana xaaladan maanta lagu jiro inaan difaaceena kor u qaadno, inaan fitamiinaad badan helno, inaan maaragta waxa weeye jirkeennu uu awood u yeesho iska difaaci karo waxyaabaha fayraska iyo hergebka iyo waxyaabahaas oo dhan. waxaad ogaataa haddii ilaahay kuma keenee adoo cuntadaadu xun tahay, nafaqadaadu xun tahay, fitamiiniskaagu yar yahay, bariis cad iyo baasta cad iyo bur cad iyo hilib cad iyo saliid cadday iyo waxyaabaha ka daba wareegaya maantay, haddii cudurkan maanta laga qayliyey oo kusoo food saaro kale ama kusoo weeraro, ma haysatid waxaad iskaga difaacdo. jirkaagu ma difaaci karo, because jirkaagu inuu iska difaaci karaa waxyaabahaas oo kale, hergebka iyo viruska iyo waxyaabahaas oo kale, wuxuuna ku difaaci karaa jirku inuu haysto maaragta immune system ama difaaca jirkaagu inuu kor yahay oo aad haysato maaragta vitamins iyo minerals. waa very important insha allah. phytonutrients ayuu u baahan yahay jirkaagu inaad hesho maalin kasta, every single day. khudaarta kala kalarka ilaa 7 nooc inaad hesho, tusaale ahaan ayagoo kaa caawinaya waxyaabo badan sida hawada wasaqaysan markay warshaduhu qaaca tuuraan, hawadu markay wasaqaysan tahay, waxyaabahaasoo dhan ayay marka ka difaacayaan jirkaaga. waxay kaa difaacayaan ayaguna phytonutrients waxay kaa difaacayaan inaad hesho tusaale ahaan awood inaad hesho aad iskaga difaacdo waxyaabahaasoo dhan. marka ayaguna waa very important. haddaba waxaan u baahannahay saad hadda sawirka halkan uga jeediinba 40% inaad hesho qofku healthy carbohydrate inuu cuntadiisa ka helo, inaad hesho maanta 25 gram oo fibra si ay calooshaada ugu socoto, inaad hesho hydration biyo kugu filan inaad hesho maanta ood cabto, 30% protein inaad hesho oo maaragta u baahan tahay, hurdo wanaagsan inaad hesho ayaad u baahan tahay, waxaad u baahan tahay 30% healthy fat inaad hesho. okay, marka xageebaad ka heli kartaa waxyaabahaasoo dhan insha allah, kuween wanaagsanayn kuween wanaagsan, waxaasoo dhan insha allah si toos ah haddaad noola soo xiriirto waxaan kuu samayn doonaa coachingkeeda, waxaan ku sii doonaa kan waa si guud, laakiin talooyinkii kugu habboonaa iyo plaankii kugu habboonaa iyo sidaad noloshaada ku bedeli lahayd maanta weliba waqtigan adaga maanta lagu jiro. haddaba waxyaabahaasoo dhan hadduu qofku uu de maantay nafaqadiisa hagaajiyo oo biyihiisa hagaajiyo oo fiberkiisa hagaajiyo oo maaragta waxyaabahaasoo dhan soo hagaajiyo, waxaa normal u shaqaynaya iyo balance nutrition ayuu helaya. wixiisoo dhan marka jirkiisoo dhan si balance u shaqaynaya, weightkiisii inuu xakamaysmo oo maanta aadan noqon qof cayilan ama qof buuran ama qof skinniga ama qof aadan noqonin skinkaaga inuu caafimaad helo maantay oo maaragta skinkaaga uu dhalaalo oo kale, tusaale ahaan laalaabatooyinkaaga inay maaragta caafimaad helaan ayaguna saasoo kale. saad hadda sawirka uga jeediin, maskaxdaadu inay hesho maaragta nafaqaday u baahneed iyada laftirkeedu. meeshaan ka soconaa waa maskaxda, lugaha markaan qaadayso amarku halkanuu ka imanaya. marka haddaysan maskaxdaadi nafaqa ama nutrition haysan oo aad maalin kasta waxa weeye bariis cad iyo baasta cad aad isticmaalaysa saliid cadday, waxa weeye way adkaanaysaa. marka meesha laga koro, wax laga fahmo, wax laga akhriyo, maaragta waa maskaxda wey. marka inay iyaduna nafaqaday u baahneed hesho, healthy nutrition, iyo inaad injectionkaagi kuu fiicnaado, calooshii kuu socoto, musqushaadii gasho, inaad markaas waxa weeye saddexdana iyaguna normal noqdaan sida cholesterolkii iyo maaragta dhiigkarkii iyo sokortii, waxyaabahaasoo dhan ayaguna inay sidoodii normalkoodii u shaqeeyaan. waxaasoo dhan waxa keenaya isbeddelka aad ku samaynayso cuntadaada iyo nafaqadaada aad dheeli tirayso ama aad balance garaynaysa ayaa waxay keenaysaa inay waxaan oo dhan balance iyaguna noqdaan. haddaad aragto qof maaragta mar sokortiisu kacayso, waxyaabahaasoo dhan cholesterol waxaasoo dhan balance ma haysto, nutritionkiisa ama nafaqadiisu ma dheeli tirna. marka sidaa darteed waxaad u baahan tihiin runtii inaad heshiin nafaqo dheeli tiran, waxaad u baahan tihiin inaad heshiin coaching, waxaad u baahan tihiin inaad laydin sameeyo qof kasta maanta loo sameeyo plan iyo system cunto. Soomaali haddaan nahay runtii cuntadeenu aad bay u xun tahay, wax badan waan ka hadlay, marar badan waan ku soo celceliyey, waana shaqadeena oo de taasna kama daalayno. maxaa yeelay sababtu waxay tahay wadankii markaan joognay cuntooyin waan cuni jirnay aan macnaha aan caafimaadku u wanaagsanayn ama nafaqada ku yartahay, laakiin waxa na caawinayay cimilada na caawinaysay, waxa na caawinaysay qorraxda, waxa na caawinayay cuntada fresh iska ahayd, xataa inteeda badan hawada, waxyaabahaas oo dhan. haddaba marka waxaan samaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim, ama aan samayn doonaa inaan soo wada xiriirno biidnillah oo contact ila soo samayso insha allah qaybtan hoose oo aniga kuu dhigayo insha allah teleefanadeydii wixii macluumaadkayga. haddaad markaas contact nala soo samayso insha allah waxaan samayn doonaa balaan wanaagsan
iyo maaragta system cunto oo nafaqo ah oo weliba waqtigan adaga maanta lagu jiro aad waxa weeye aan uga wada bixi karna dhammaanteen okay marka maasha allah aad baan idiin salaamaya insha allah waxaan rajaynayaa in intaas fahanteen ama aad ka bogateen marraba muuqaalku intaa kasii dheeraado inaan ogaano waxyaabaha jirkeenna u baahan yahay inaan jirkeennu helo nafaqo dheeli jiran maaha inaad qasab miisaan dhimayso ama aad miisaan kordhinayso laakiin inaad daily u baahan tahay inaad hesho nafaqo dheeli tiran inaad hesho maaragta balance nutrition inaad hesho waa very important intaan ku kulmayno muuqaalkeena ka nooxiga waa coach mahad oo idin le insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.